munaasabadani lagu qabtay dugsiga Turkisom ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dhaarinayay ururka sagaalaad ee kumandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor. Munaasabada dhaarta waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Dhaariyay Yusuf Raage, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Turkida ee ku sugan Turkisom. Ugu horeyn munaasabada waxay ciidanka ku soo bandhigeen gaadakacayaar soo jiitay madaxdii iyo marti sharaftii ka qayb galay, iyagoo halkaasi loogu tumay astaanta calanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Intaasi kadib saraakiil xigeenada askarta ka tirsan ururka sagaalaad ee kumandoska xoogga dalka Gorgor ayaa goobta lagu dhaariyay. Taliyaha Turkisom u qaabilsan dowladda Turkiga General Salax Albaye ayaa goobta ka hadlay. وهذا الإنسان توبتني أساسي كمان جوا جنمنا توبتنا كتير وعلى توبتها خصوصا خصوصا قرن دولتان خصوصا توبتك كمان دوستا تركيا المجال إسبانيا توبتك مكة وصول لنا وحقيقة نقوم دولتان سوف تحوك الدولة الصومالية وعنا نسمع كم نقوم دولتان إلا حوكا كأشرفتا يكون كفار. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Dhaariyay Yusuf Raage ayaa munaasabada gabagabadeeda hadallo dardaarana ka jeediyay. ururka sagaalaad ee maantay dhaartiisii halkan ka dhacday tahayna gabagabadii fayska koowaad ee tababarkooda waxaa sharaf weyn inoo ah inaad ku soo biirtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan cutubyada gaarka ah ee Gorgor. waxaan rabaa inaad noqotaan kuwa xusiisnaada mar walba iyo meel walba aad joogtaan dhaartaan maanta halkan ku dhaarateen, sidaasoo kale aad xusiisnaataan sababihii aad ugu soo biirteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed una gashateen dariiska aad ku jirtaan. waxaan rabaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka saaran guud ahaan dalkooda iyo diintooda. sidaasoo kale waxaan rabaa inaad noqotaan kuwa xusiisnaada dhammaan tababarada kala duwan kuwaad soo qaadateen iyo kuwaad qaada doontaan oo aadan noqona kuwa hilmaamo uga taga meeshay ku mareen. taas waxay naga saacidi doontaa horumarinta iyo xoojinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. ururka sagaalaad ee kumandoska xoogga dalka ee Gorgor ayaa tababar ku qaatay muddo dugsiga Turkisom, iyagoo tababaro kale oo dheeraada ku soo qaadan doono dalkaasi Turkiga.